وحال الدلي لحية طمان قفور باش بدول قدله سديد كمذا وأوركع حسيل أنت كمذا ما حسيل أنت لفت هذا وربا نوجا جرا أو ضدك الدلي أو حسيل أنت وحال لي قرق هذا لما كنت الدلي أسكال أتو السوق ده جيسه قرق أنا وقرق السوق دي أو العقل السوق بحي وارث وليه دوري وليه أو إنك كنت ساكر بكشتال يري ومدنا لكن تاسلق قبنا لكن سديد كمذا ضدك كاسر الدلي وركع لودي هذا حسوا حكمنا إنك الجوري سلاك وذا عربس دكان كيس الجوسو اللي أصار دنتي أو حبض السميدة والغلار نفتي أنت الجوسو دير الجردل قدنت وحكمنا إنك أمبراطوري أرجاب الجود الأسوق تقبلون تجد دولة التاجن وحكمنا إنك الجود اللي شيء طبعا كي مي هذا اللي يرى فاستدي جورو جوال waxaa kamida daahir dheere oo lagu dilay carwo idkoon marka uu la shaqeynayay marka uu qaladki ururka dhaxyiina doo sheegay leeyahay bishay kartid lacag aruursi dadweyne oo booba subax damana loo yeeray tariis oo xabad ku dhiftay dhibaatooyinkaas kadib waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka beesha mudulad waa adkaysi weyday dawladnimaday jeceshahay dawladnimaday jeceshahay way soo dhaweysay markii dawladda la dooranayo farmaajo banaanbaxay u samaysay dhiigga beesha mudulood waxay go'aansatay dhiiggeeda in dawladda lagu waraabiyo laakiin markay aragtay 14 qofood markii laga dilay oo haddana ay maraysa dhimashada 16 waxa uu soo baxday kadib markaas jagboynti niman ayadu dhigtay dawlad ayadu ay dhigtay oo madaxtooyada waardika ah ninkus niman ku soo dilo hal qoys baawur isla saaraayeen oo baawurka 12 ka saar ay hal qoys ka wagoday labana ay ku soo dileen way soo ordeen nin jooga jagbayntiga umurtur algaabi dilay waa soo wareegan guriga haweenka ka soo galeen ciidanku waa iska warqaba nimankaas waa la fahmi waaye xabada la isku bilaabay haddii xabada la isku bilaabay saddex niman markii laga dilay saddexdina isku qoysay noqday xasilina ma naga kariyo hal qabiilo baabur isla saaran halkaas markay marayso beesha mudulo dawladda waa dhalishay warbaahinta kala duwan ay ka hadashay ilaa yoomun hada wax lagama qaban waxaan u gudubnay 8 jilib lagu duqay gantaal lagula dhiftay cruise waxba lagama qaban beesha mudulood waxay ka xishoonaysaa waxyaabaha qaarkood waa ka xishoonaysaa 8 nin oo jagboyntiga joogtay waa la xiray naga qanciya haddaan dhahna dawladda way nagu soo laabowaysa ma naga qancin intaas kadib beesha mudulood waxay u yeertay wasiiro xaggooda ka yimid oo dawladdu ay magacaawday waxay tiri war dhibaatada anaa nagu dhacday waxaa la tusaa sawir 4 nin oo kamida kala lahayn oo sawiran beydkoodu sawiran yahay xabadu meesha ugu yaalin ay sawirantaa la tusa waxaa la tusa wasiirka amniga la tusa xagga iga sikoow oo iska firaqay waxaan cadaynaynaa beesha mudulood wax ninkaana kamida waa meesha la yiraahdo umurtur algab ninka lagu dilay ninkaana kamida waa ninkii lagu dilay gobolka federaalka gobolka banaadir waa ninkii carbiska lagu dilo jirdirka u dhintay oo dumarka gobolka gobolka Soomaaliya saas daraadeed warqadii maxkamadda carwadka ninkii lagu dilo warqadiisi waay marka wax qarsan ma jiraan ninkii markaan dawladdu ay magacawdo oo xaggayna ka ugu yimid dawladda markaan u sheegnay xagga iga si koowir cid laga qaraaya ma jirto dawladda annaga ma noo dhaxay kara nimanka noo magacaaban waxaan dhahnay dawladda annagana xariiriya dawladda ay magacawdo laakiin xaggayna ka timideen waa ku hingownay wax badan u yeernay waxa uu dubayso daraad ma qabanayo wuri dawladdu nagu halaymaysa nimankaas waa niman nala kufay warka mudulood intaasuu ku ogyahay waxaan ogeysiinaynaa beesha caalamka ogeysiinaynaa جماعة القرآن كان حسوا أويسينينا عرب ليج وأويسينينا أفريقيا يونيون وأويسينينا
dhibaatadaasaa ka jirta dowladda federaalka marka beesha mudulood haddii ay saan ay sax tahay wixii ka soo baxa beesha mudulood oo uga yimaada dowladdu iyadaa ku camal fali doonta wayna arki doonta waxa ka yimaado wabillahi tawfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. horta walan waxaan salaamahayaa akhyaarta meeshaan fadhida ee isugu jirta odayaasha waxgaradka xildhibaanada inta meesha ay joogta ee ka soo qayb gashay shirkan jaraa'id ayaan waxaan leeyahay ku salaamahayaa 414 islaamka ku salaamahayaa salaan dabadeed maanta waa maalin ciida waa ciidii ugu weyneyd ciidaha Soomaaliya ee nafarka ka dhaca muslimiinta waxaan leeyahay inta jirta ee dalka joogta dibadda joogta ciid mubaarak ciid wanaagsan aan leeyahay sama ku afura sama ku ciidaan leeyahay insha Allah taala taas waa taas waxaan rabaa nimanka la yiraahdo walaalahaya dowladda federaalka ah waxaan leeyahay war magaalo Soomaalidu waxay tiraahdaa warqadu ku yaalaa shirka jaraa'id horudhiciisu wuxuu ahaa warqadii uu akhrinay inanka meeshaan la taagnaayo aad arkaydeen ee Sheekh Ibraahim Weyn waxa weeye marka taas horta intaas ayuu maaragtay ku eg oo ku kooban yahay waxaan faahfaahin kula daraynaa akhyaarta ka dambayday ee sawirrada idin tustay ee sawirradaas ay yihiin kuwa xaqeeqa ee beenta laga sheegi karin xasilinta na ay maaragtay federaalku soo dirtayna ay sameeyay xaggeedu nooga yimiday waxaan leenahay marka meeshaani dawlad dalku hadduu leeyahay waxa la rabaa dawladdaas inay meel kasta og tahay oo ay ka warqabto wixii marka loo keeno la soo socodsiiyo taas inay marka horeba wax ka qabatay yahay hadda ma dhicin haddana waxaan soo soconay nolol naqatay haddii aan ka tashanay oon arrintaas fariisanay oon dalkii dibadda waliba isgaarsiinay ayaa waxay noo naqatay hadalkii warqadda ku qoraa ee uu sheegay Sheekh Ibraahim waxa weeye marka mudulood waad ogtihiin marka dawladda la soo dhisay habeenkii iyo maalintii ka dambayday iyo habeenkii ka dambeeyay asbuucaas oo dhan inay u sacabtumahayeen dawladda oo ay soo dhaweynayeen meel kasto ay joogaan ma ahayn gobolka Banaadir kaliya Nairobi hadday joogaan saasay yahay oo ummadaha kale hadday la jiraan saasay yahay oo dawladdu marka waxa weeye sida aan anagu ugu lisnay noogu mahambayn sidaas daraadeed markaan iswarsanay oo kuwii la sheegay annaga naga dhashay ee dawladda noogu jiray ilaa waa la ogyahay waa 4.5 dawladdu sidaasay ku dhisan tahay annagu marka mudulood haddii aan nahay kuwii noogu jiray ee aan meesha geysanay waxay noqdeen sida la sheegay kuwa nala kufay hadda qof kuftayna waxba kuugu bataalo waxaan leenahay marka oo u sheegaynaa adduunyada oo inta la sheegay sida Arab League oo kale United adduunyada aan u sheegaynaa in aanay dawladda maanta wixii ka dambeeyay aanan ku tashay in aanan ku xisaabtamay inaan annagu waxaana yarka aan iska umbadeena aan isaga falaqsiinayna insha Allah taala oo isku tashanayno waa mahadsantihiin intaasan ku soo dhawaad jaaliyadaha sax jaaliyadaha banaanka oo ku abtirsada beesha mudulood ayaa waxaan leenahay hambaliyaan leenahay arrimaha sida ay u galeen haddeerna ay ugu taagan yihiin waa beesha mudulood jaaliyadeeda meel kasto ay joogaan waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waa in kaga mahad celiyeynaa annaguna waa qaadanay waa iswarsanay sida aan sheegayno ayayna noo noqotay oo aan ku gabagabaynay dawladdu inaysan shughul annaguna ku melihin ayana nagu ma laha wabillahi tawfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين هذا قيمة بدن ومالين عيد الأضحى ومالين بركيسن وأعماشي حشكة إدماتي مسلمين تقدماتي ومالين
إجابة يا خير إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وسعة دولة فدرالك الصوماليات وقيسين وكيل كسياسة قرامة مدوغ يرود نيشي كصوماليا وجوغا وكيل كورو قولات كإيجاد عرب ليغ وكيل كذا وقيسين معمول مدحدة معمول قولات يدا وجدو دقنين شرعي سوقي مادين باشا مدلود كاسو كصاب سنة دباتينتا هي تعدي جوكتدا آية باشا مدلود أي كوهايسو دولة فدرالك الصوماليات كاسو باللاودي مدلقة جوغا لبا بالكه يبر dhibaatayntaas oo ay ka mid yihiin dilal meelo kala duwan ka dhacay sida cabiska dadkii lagu dilay baar ubax kuwii lagu dilay kaawagoday degmada kaaran lagu dilay xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir habeenkii xafladda la 15 May lagu dhigay lagu dilay iyo shalay oo ninkii u dambeysay la dilay iyo 9 qof oo lagu laayay degmada jilib agteeda dad culimo ah oo ahlu sharafa oo culimo ah oo dadkan xigta la ahaa dadkaasoo lagu laayay hubka loo yaqaan kruuska waxaa kale oo dhibaatada kamida dad xiran waxaa xiran dadkan dadka xigtada la ahaa dawladda ayay u xiran tahay madaxtooyadii ku xiran yihiin waa ciidan amar la siiyay oo la yiri amarka fuliya halkaas yaan la soo dhaafin dadkii marka waxa dibka waday oo loo inay ilaaliyaan lagu amray ayaa loo xiray sababtoo marka arintaas concern ka qabnaa arinan qaada karna ma aha sharciga dadka in la iska haayo ma ahan wuxuu qorayaa 24 saac kadib inaan la hay karin maxkamadood is xalaalay maxkamad xalaaleynteeduna waa 10 casho iyo wixii ka yar walaalayaal bil iyo bar dadkeen inay ku xirnaadaan xabsi madaxtooyo ku yaala waxaan u sheegaynaa taliyaha ciidamada ugu sareeya waa madaxweyne Farmaajo arintaasi beesha mudullood go'aanay ka qaadatay maanta kadib waxa waaye go'aankeeda qaadanaysa walaalayaal sidaa darteed arintaas oo beesha mudullood inaysan haynin dawlad u haynin wax naxariis ah jiritaan ummadeed waxay go'aansatay beeshu in ay kala laabato kalsoonidii ay u hayso dawladnimada Soomaaliya waayo dawladdu marnaba xuquuqdaas iyo dadkaas la laayay iyo dadka xiran marnaba maaragtay kama bixin raali gelin kama bixin inay ka timaaday tiraahdo warsaan yasaan ayaa wuxuu u dhaceene tala ayaan idinka gelinaynaa arintan walaalayaal marka dadkaynu ma ahan dad oo maaragtay la iska hilmaami karo waa ulbira abuur ma laayo waa taagnaanaysaa weligeed waa taagnaanaysaa waxa waaye dadkaani waa la yaqaanaa dawladdii maxamed siyaad barre khaladkii uu maxamed siyaad barre ka galay ilaa maxamed siyaad barre waa ku tegey annagu taariikhaan leenahay ma la inkiri karo cidna dulmi mayno dawladnimadana gogolaan u nahay dawladnimada dadkii dhisaana annagu haddaanan dhisin dawladnimadu ma jirayso sababtoo ah ma isku amaanayno dalka iyo dadka lagu wada joogo dadka u badan annaga waaye walaalayaal dawladdu hadday saas u garawayso annagaa garansiinayna warkaynu intaas ku soo kooban yahay warkan warkiina ma yahay warkan markiina ma yahay mudulloodow waa maasantii